بسم الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية waxaa farxad weyn inoo ah annagoo ah raabitada aimada masaajida faracna ka ah munadamada ixsaan ee ricaayada ijtimaaciga ah ama daryeelka bulshada ku howlan in aan muxaadaradan idin soo qabanqaabino caawa ka dhacayso masaajidkeenan barakaysan masjidka siiska muxaadarada waxay noo soo jeedin doonaa fadiilat sheekh maxamed cabdi umal xafidahu llah waracaah wajazaakum allahu khayran. waxay yeelan doontaa muxaadarada su-aalo. muxaadaradu waxay ku saabsan tahay bitcoin iyo mucaamalaadka cusub ee hadda soo biiray. marka waxay yeelan doontaa su-aalo oo laga jawaabi doono inta laga gaaro khusaysana mowduucan hadda halkan aan u fadhino. falyatafadal mashkuuran maajuuran. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن كان عاوة موضوع يسو وكهر الله شيء البيتكوين حقيقتها وحكمها الشرعي. بيتكوين حقيقة ذا نحيتها هي حكم كذا الشرعي شريعة ما هي كتبتها. لو حلقة أما لو فردي إن شاء الله محاضرة نقدم تا مركي ورا هل فردي بنقول ذي لكن سيدا مقطع لو فردي يبقى هنتهي فردي واكن ووحن كجاه هذه الدنيا إن شاء الله تعالى حقيقة ده بيتكوين هي محيطة in la fahmaa ka horeysa in la xukumo. marka fahamkeeda ayaa wuxuu u baahan yahay tafaasiil fara badan iyo hadal badan yuu u baahan yahay. qodobkaasaanan insha allahu tacaala darsigeena caawa ku gaabsan doonaa. fadhiga labaad oon rajeynaya habeen dambe inuu noqdo insha allahu tacaala ayaan kaga hadli doonaa xukumkeeda sharciga ah iyo wixii laga yidhi maxaa ka khaldan maxaa shareecada waafaqsan. waxaan doonayaa inaan ku bilaabo dhowr qodob oo hordhac ah. qodobka koowaadi waxa weeye ruuxa mu'minka waxaa waajib ku ah mar kasta inuu digtoon yahay oo kasabkiisa aada iyo aada uga taxadaro, xalaasha cad uu ku gaabsado, wixii xaaraan ah ama u caddaan waayana uu isaga tago. xadiidkii nabigeena waa kii ahaa sal alla alay wasalam alxalaalu bayinun waalxaraamu bayin wabaynahumaa umuuru mushtabihaat laa yaclamuhuna kaiiru min annaas. xalaashu waa caddahay, xaaraantuna waa caddahay. waxyaaba isku qasan oo isu eg baa u dhaxeeya. ruuxii waxyaalaha aan caddayn isaga tagaay diintiisa iyo cirdigiisaba fayoobi u raadsaday oo uu ilaashaday waa. gaar ahaan mucaamalaadka cusub oo loo yaqaano almucaamalaat almucaasira iyo cuquudda cusub oo inta badan kutubtii hore fiqiga sida ay hadda u jiraan aan ugu oolin, waxay u baahan yihiin inuu ruuxu aada uga fiirsado. qodobkaasi waa qodob koowaad. qodobka labaad waa inaan ogaano waayahan dambe waxaa aada u badan waxa la yidhaahdo alixtiyaal waalnasb, sirta iyo khayaanada. kambaniyo iyo shirikaad badan oo adduunka ka jiraayay
maqsuudkoodii iyo ujeedadoodu waa inay xoolaha dadka u xeeladaystaan oo farsamo ay ku dhacaan keenaan caalamka intiisa badanna waa dad aan wax akhriyin ama aan fahmi karin waxa ka dambeeya howlahan iyo waxay ku dambayn karaan jahliga marka dadka haysta bay uga faa'iidaystaan inta badan kadibna sidaasay xoolaha ku dhacaan waxaynu xusuusannahay sannado ka hor waxaa ina soo galay kambaniyo la dhihi jiray ama loo yaqaano sharikaatu taswiiq alharami oo badeeco la suuq geynayo ama kaadhar la qaybinayo oo dadku ay lacag siisanayaan kadibna cid walba cidday keentay ay wax ku helayso kadibna ay korayso oo ay dallacayso marka dambena abaalgud ay helayso ciddii xusuusatee kamaniyadaasi markay yimaadeen waan ka hadalay xaadaraan ka jeedinay sidan oo kale wax yar kadibna meelay galeen baa la waayay markay xoolo badaan urursadeen meelay ka dhaceen waa la waayay waa qarsoomeen adduunkayna sidaa ka yihiinoo kolba meel laga degan yahay bay helaan maalinkaa markaan ka hadlaynayna dadka waxoogaa wax ka helhelay oo waxoogaa dhuuntu u yara gashay waxay lahaayeen wadaadadu ma yaqaanaan masaa-isha maba fahansanaba waxaase soo baxday inayna iyagu fahansanayn ama waxoogaa hunguri waday hadda 2 usbuuc ka hor masaajidkeenna hortiisa qolaa teendhooyin soo dhigtay waxay leeyihiin waxaan doonaynaa inaan noolayno lacagtii nebi maxamed isticmaali jiray sal alla alay wasalam oo diinaarka iyo dirhamka ah dahabka iyo fidada ah si lacagahan dowladuhu samaysteenee gaalada ka soo jeedeen ribada ku salaysan looga xoroobo dadaal waxaan ku jirnaa inaan soo celinno lacagtii nebigu isticmaali jiray sal alla alay wasalam saas daraaddeed maalgashada meeshan masaajidka nasiiska hortiisay teendhooyin soo dhigteen masaajidka jaamica mooskana teendhooyin bay dhigteen meelo badan bay dhigteen dad badan baa xoolo ku guray oo lacagtii nebigu isticmaali jiray baa isweydiisaanoo ma nebi maxamed baa samayn jiray lacagta sal alla alay wasalam mise dowladdiisaa samayn jirtay labada lacagood midna waxaa samayn jirtay dowladdii ruum oo lacagta dahabka oo diinaarka ah midda kalena waxaa samayn jirtay dowladdii furus oo waa lacagta fidada ah ee silfarka ah ma jirin lacag nebi maxamed samayn jiray sal alla alay wasalam laakiin dadka iska yar caadifaysan oo islaamka isaga caadifaysan baa waxaa la leeyahay lacagtii nebigaan soo noolaynaynaaye lacag keena khalaas dad badan baa laga urursaday xeeladaysiga noocaasa marka waa badan yahay maalin boqolaa imaanaysa barnaamij baa la keenayaa dadku waa ku daadanaya waa la isdhacaya aad bay u badan tahay waana arrimo u baahan runtii aad iyo aad in laga taxadaro oo la iska ilaaliyo qodobka saddexaad oo baraarujinta mudan wuxuu yahay masaa-isha noocan oo kale ah bitcoin iyo wixii la mid ah alcumulaat alwaraqiya ama raqamiya la yidhaahdo oo hadda mawduucaanu ku saabsan yahay waxay ka mid tahay waxa la yidhaahdo almasaa'il annawaasil walwaqaa'ic almustajadda masaa-isha cusub oon horay u jirjirin oon culimmadu horay uga hadlin ama wax iyadoo kale aynan horay uga hadlin ee caalamka ku cusub bay ka mid yihiin ayay ka mid tahay masaladan masaa-isha noocaas oo kale ah marka go-aan laga gaadhayo oo shareecada loo bandhigayo oo xukun sharciga laga soo saarayana sida qaalibka waxay ku fiican tahay in fatwa jamaaciya ka soo baxdo si wada jir ah culimo u fadhiisatay oo baadhay oo makaashatay marka hore culimada dhaqaalaha ku takhasustay ragga aqoon-yahanka dhaqaalaha ku takhasusay kaashada oo ay u sawiraan marka hore xaaladdu say u jirto mucaamaladani say u jirto xaqiiqadeeda markaa kadibna culimadu inay saaraan xukunka sharciga ay noqoto go-aan iyo qaraar iyo fatwo ay rogrogeen kana soo baxday tiro badan oo culimmada ka mid sida majaamicda fiqhiga ah hay-aadka fatwada caalamulislaami waxaa jira
يعني كل مدى قار كودو يسوق إيمانيا تقريبا كنتن بقول من علماء عالم إسلامي كيم هل مسألة الرقية قام على صاري مجاميع النوع عاصو كلية فتاويذ الجماعية أيام مسائش النوع على كلا كفي عن إن أي قرآن كسو صاران وفتوى كسو صاران إنت أن أوجهي إلا يهدى مدعن إن فتوى الجماعية إصابة حذي كلية وحل أي وحويان بحوث أي رق قاركود ديارية هي فتاوي أي علماء خاصة أصو صارين أنت اللي قاعد يمرك كل علماء سي جماعي ويقول للدونا مجموع الفقه الإسلامي ولا قاعد للدونا لكن أنت اللي قاعد يو والوحي أي كردهن علماء بعدي إيوه سيدي مسألة وحلوقة قري أنت أن أركي من دون إن شاء الله تعالى وحي أن كفهمي إن السوق بإذن الله تبارك وتعالى بحوث دورة هي فتاوي دورة تقريبا لواتمية قاعدة ما كل دواني أو كلا دوان بين مسألة كأخري وحكم إذا مثلا مثالها فتوى أولية فتوى كصوب أحد دار الإفتاء المصرية وأولية مفتقة مصر شوقي وحكم إذا فتوى أولية هاي الشيخ عبد الله بن محمد المطلق حبن كم إذا هي هذا علماء دواوين المملكة وحكم إذا سيدو كلمة أولية هاي الدكتور علي محي الدين الغرداقي ويستغرى نن علمي قد قالها المعاصر كاكو تخصصي بحوث ربضنا له وياه وحوث شوقا ميش إلى قطر وحكم إذا سيدو كلمة أولية هاي الدكتور عبد العزيز الفوزان وأستاذ استغنى جامعات السعودية وحكام لقى تخصص أوليه فقهي سيدو كلمة الدكتور صلاح الصاوي ويستغنى علمي قد قالها عصب آد وحوقا قرى أيها سونا بحثي كله نيل هذا أبو خالد الحجازي سيدو كله بحثي بولي نيل هذا الدكتور وليد مصطفى شاويش وكلية الفقه المالكي عمان كعميد أسونا بحثي بولي ونسغنى آخرين سيدو كله الدكتور عبد الله بن محمد العقيل وأستاذ مساعد كقسم الفقه كلية الشريعة الجامعة الإسلامية بحثي وحليه لدى الأحكام الفقهية المتعلقة بالبيتكوين أي يساقون إليه هاي وتقريبا كنتم صفحة كله حكم إذا الشيخ محمد بن صالح المنجد ويساقر إن عالمة وعلمي قد قالها يساقون آد وحقاشة كان قرأ كم إذا إنهاس يبحوث كالي أيان أخريي وأن هذا كسو دياري ماددا أن شهدين دون إن شاء الله تعالى أنت كذب مقدمة ذا كذب وحالي عاوحا كان لدونا بيتكوين حقيقة المحيطة كذبنا حكم كوحمد بلغانا إنا فردقنا صوصا بيتكوين محاتها ما بديعة ما العقبة ما تشمبة ما إنسبة محيطة حقيقة دين لفهمه بانت لأن وحوي الشرعة مركي حكم شيء لساريو وحاكه الرئي إن شيء اللي فهمه الحكم على الشيء فرع عن تصوره هو الشيء هذا سي خلط أصورته أما حقيقة دي سي خلط سي كدونا دو فهمته قطع وحكر لنا يا حكم كان صار سنة إنه خلطه حديث تصور كأي شيء حقيقة دي ساعات صورة ستوت سي صح أفهمتنا مركا وحيكوكو كالبين سائنات حكم كيسه شو أما سي صح إنات حكم كأوصارت مركا حقيقة هذا محيطة هاي بالوحي اللي غير البنك المركزي الأوروبي سنترال بنك يوروب أي قيحي وحقوق قيحي وحليه هو مخزون إلكتروني لقيمة نقدية على وسيلة تقنية يستخدم للقيام بمدفوعات لمتعهدين غير من أصدرها دون الحاجة إلى وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة وتستخدم كأداة محمولة مدفوعة مقدمة عليه هاي بيتكوين وحل إلى هذا وكيد قيمة العقيدة وكورنتوك الشقية والله مري طريقة تقنية والله استعماله بحنت وحيابها اللي يسكو يشو أما اللغو بالله سيدا ديمها إيو بدعوينك
ayadoon loo baahanin markii wax lagu bixinayo ama wax lagu iibsanayo ayadoon loo baahanin markii wax lagu kala qaadanayo account banki yani inaad account banki leedahay ama banki aad marto uma baahna waxa kale oo loo isticmaalaa sidii qalab la wato ama la xambaarsan yahay oo horay loo bixiyay oo kale macnahaasi ku qeexa bimaana wax weeyaan waa lacag kayd ah korontona ku shaqaysa badeecooyinka lagu iibsado deymaha la isaga bixiyo marka la isticmaalayana aan u baahnayn account iyo bangi aan u baahnayn labada ruux ee isticmaalaya toos ay isugu wareejinayaan iyagoon meel dhex sii marin waa lacag aan la taaban karin wax la taaban kara maaha wax ishu qaban kartana maaha laakiin waa wax uun korontada ku shaqeeyo oo lacag ahaan loo xisaabinayo oo la kala rogahayo wax lagu gadayo oo la isku wareejinayo oo qaabkaas weey macnaheedu waxa weeye waan si faahfaahin doonaa qeexidaasi waxay tilmaamaysaa ay leedahay waa nooc lacagaha ka mid laakiin lacagaha kale waxay kaga duwan tahay waa electronic waay waa nooc waa electronic waxa la yiraahdaa wax kasto koronto ku shaqeeyo koronto la'aanteedna aan shaqeyn karin waa inay koronto hesho internetna hesho saan macnaha aan u tagi doono insha Allah ta'ala bitcoin waa magac company kamida kambaniyada sameeya lacagta aan hadda sheegnay laakiin kaligeed ma aha kambaniyada sameeya lacagaha electronic ah way ka badan yihiin boqolaal way ka badan yihiin laakiin midana ugu caansan bitcoin baa ugu caansan laakiin kuwa badan oo kala jira qaar waxay leeyihiin kun bay ka badan yihiin qaar boqolaal bay gaarsiinayaan laakiin waxa ugu caansan bitcoin litecoin ethereum onecoin iyo bitclub hadda kuwa mucaamalaadkeeda ku shaqeeya kamid ama qaabkeeda u shaqeeyo ku yaradhow way badan yihiin kuwa kale bitcoin waxaan u dooranay inaan uga hadalno iyada asal ah ayadaana ugu caansan ayadaana ugu ballaaran kuwa farbadaan oo kale taa jiroon iyada marin kuwana iyaday maraan oo hawsheeday ka sii hor shaqeeyaan intuba way jiraan lacagtan haddaan lacag weyn idhaa magacyada loo yaqaano waxaa ka mid ah alcumla electroniya magaca waa loo yaqaanaa yani lacagta electroniga ah korontada ku shaqeysa sababtu waxa weeyaan samaynteeda kaydinteeda isticmaalkeeda kulli waxay isticmaashaa koronto computer iyo wixii la mid iyo internet maadaama aynan intaa ka maarmin oo la'aantood aan la isticmaali karin baa waxaa loo bixiyay marka alcumla electroniya e-money baa loo yaqaanaa e-money ayib waxaa kaloo loo yaqaanaa alcumla alraqamiya lacagta nambarada ah waxaa laga wadaa iyadana oo qaabkaa loogu magacaaba lianna lacag la taaban karo ama ishu qaban karto ma aha laakiin waa nambaro uun combyuutarka ku kaydsan internetkana loo maro nambaradaana laga soo qaaday inay lacag yihiin sidaas daraaddeed baa waxaa la yidhaahdaa lacagtii nambarada ahayd saana waa la dhahay waxaa kaloo lagu magacaabaa alcumla aliftiraadiya waa lacag laakiin lacagnimadeedu waa uun qiyaas iska qadar waay waa muqadar waxaa taaban karta ma aha laakiin waa dihni waay adiga maskaxdaada uu waxaad ka qadartaa nambaradaasi inay lacag u dhigmaan sidaas daraaddeed baa iftiraadi loo yidhi waa wax la qadaro ee wax la taaban karo maaha magacyadaas oo dhan bay leedahay alcumla electroniya alraqmiya aliftiraadiya kullu dalika waa la yidhahda ayib waxaynu ka hadlaynaa marka kadib lacagtaas see lagu sameeyaa lacagtaasi see lagu sameeyaa si ku timaada waa midda labaade lacagaha aan isticmaalnay dawladuhu sameeyaan iyo iyada maxaa u dhaxeeya maxaa farqi maxay ku kala duwan yihiin bitcoin-ta dadka isticmaala waa laba nooc
dadna waa dadka dhaliya oo soo saara dadna waa dad iibsada ama kiraysta kolba kii la yidhaahdaba kuwa sameeya oo shaqo intay qabtaan kadib lacagtaa dhaliya waa qolo waxaana loo isticmaalaa luqadda carabiga mustalaxa loo isticmaala waxaa la yidhahdaa altacdiin saasay u isticmaalaan altacdiin ninka samaynayna mucaddin baa la dhahaa tacdiinka asalkiisa waxaa la yidhahdaa marka luqadda carabiga lagu noqdo macaadinta dhulka laga qodo camaliyada lagu soo saaraa tacdiin la yidhahda markaad macdan qodayso dahab qodayso fido qodayso maalan aad dheeman qodayso shaqadaa qoditaanka ee dahabkii lagu raadinayo macaadinta dhulka ku jirtaa waxaa la yidhaahdaa caddana tacdiinan kelimadii dahabka qodidiisa ama macaadinta qodintiisa ahayd bay marka usoo qaateen raadinta iyo dhalinta lacagta saas daraaddeed baa waxaa la yidhahdaa tacdiin luqada ingiriiskana waxaa lagu yidhahdaa mining baa lagu dhaha bimacnaa tacdiinku waa dhalinta ayib waxaa kaleeto oo sidoo kale la yidhaahdaa altanqiibna way dhaha altanqiib lacagta dhalinteeda kelimadana oo loo isticmaalaa tanqiibkana luqada carabiga waxa la yidhahda alfaxsu cani shay faxsan baliiqan shayga markaad si xeel dheer u baadho ayaa la yidhaahdaa naqaba waa ka qur-aanka kariimka ilaahay ku sheegay fanaqabuu fi lbilaadi hal min maxiis marka tanqiibna waa la yidhaahdaa tacdiinna waa la yidhahdaa waa kelimaadka loo isticmaalo samaynta lacagtaas camaliyada lagu samaynayo ayib luqada ingiriiskana saan tilmaanayba waxaa la yidhahdaa bitcoin mining baa la yidhahda bitcoin mining taasi waa kelimaadka loo isticmaalo see loo sameeya waxay leeyihiin marka la samaynayo waxaad loo baahan yahay qodobada soo socda kow cidda samaynaysaa waa inay haysato kombiyuutarro waaweyn oo awood badan oo si deg dega wax u cilaajinayo sariica kombiyuutarrada noocaasoo kale aadka u awood badan lacagtoodu aad bay qaali u tahay ee dhalin kara bitcoynta ama lacagtaa bitcoynta dhalin karay marka la isticmaalayana kombiyuutarrada noocaasi waxay isticmaalayaan koronto aad u fara badan oo xoog badan oo lacag badan ku kacayso isaga kombiyuutarkii dhalinaya loo isticmaalayay horta aad buu qaali u yahay waa marka labaad ee kombiyuutar xoog badan waayo waa marka saddexaad ee korontada uu cunaya isticmaalayay koronto caadiya maaha wuxuu muddo gaaban ku dhammaysanayaa intaasoo kilowatt oo muxuu ahay koronto ah qarash wuxuu ku gelinaya aan caadi ahayn horta kombiyuutar noocaasa waa inuu ruux helo kow waxaan u malayn ragga qaarkood inay ku foofi doonaan say u dhalin lahaayeen laakiin dhexda laysu fadhiya waa midda labaad waa in uu jiro marka la dhalinayo waa in internet jiro internet la-aan lama dhalin karo waa midda saddexaad waa in kombiyuutarka lagu sameeyo program barmaja waa in la brogram gareeyo programkaasi lagu sameeyo kombiyuutarka ee mucayanka ah ayaa marka waxaa loo raacayaa silsilad camaliya xisaabiya ah yaani wax weeyaan qaab xisaabeed istaba yaalla iyo nambaro iyo riyaadiyaad iyo camaliyaad xisaabiyo aad u adag baa la maraya barnaamijka war kombiyuutarka lagu hagaajiyo kadib waxaa ka dambeeya tillaabooyin ku salaysan xisaab oo aad u adag oo nin walba uusan ka bixi karin sidaas daraaddeed qodobka xigaayo waxa weeye ruuxa dhalinayaay waa inuu yahay maahir xariif waa inuu ku yahay tiqaniyada xadiidka yaani teknolojiyada tiqanada xadiidka ah waa inuu xariif ku yahay waa marka labaad inuu cilmiga xisaabta uu sidoo kale maahir xariifa ku yahay ya nin damiina ma dhalin karo nin damiin ah ama xisaabta ku dhacay ma dhalin karo camaliya xisaabiya oo barmajadaasi ay keenayso iyadana qodob kale waa maxaa markaa ka dhalanaya tillaabooyinkaa kadib waxaa dhalanaya silsilad dheer oo nambaro
iyo xuruuf ah nambarada iyo xuruuftaasi jidka dheer mucakkadka loo maray ayaa marka waxa laga dhigayaa ama loo xisaabinayaa in lacag tahay wax lacag oo soo baxday ma jirto wax lacag oo daabacantayna ma jiro wax lacag oo la arko banaanka timidna ma jiro laakiin jidka dheer markii la maray kadib baa nambaro la gaadhay iyo xuruuf kuwaas marka waxa loo xisaabiyay inay tahay lacag kadib waxa dhacaya wala khasnadayna marka nambaradii saa u soo baxay baa waxa loo sameeyaa sidii waxyaabo akawno oo kale ama xaafid maxfado oo kale akawno oo kale ayaa loo sameeyaa farabadan akawnadii baa marka lagu kala kaydinaya mid guudna waa jira ruux walbo qayb ka noqdana akawn baa la siinaya maxfado khaas arqaamtii iyada iyo nambaradii iyaga ahaa ee lacag ahaanta u dhigtay wixii uu ka muto ku yeesho baa marka waxa loo gelinayaa khasnadiisa ama akawnkiisa electroniga isaga liftiisu waxa dhan waa muxuu ahay waa wax uu koronto ihtimaadayo ma aha wax la arkayo ma koob wuxuu leeyahay marka meesha lacagaha loo khasnadaha la gelinayo iyo tan guudba koodhar bay leedahay password iyo koodhar bay leedahay cidda haysata kaliya taa iska loo khaas la sidaas marka shakhsigu wuxuu haystaa nambaro fara badan oo u dhigma lacagta intaas qaabkaasi ayaa lagu dhaliyaa waxa kale oo mudan in la xuso computerka aad haysato iyo barnaamijka iyo shaqada aad gelayso iyo xisaabtaada iyo xariifnimadaada inta marka la isku daro ninba ninkuu kaga sareeyo ka sito waa ka lacag badanaanaya qaar baa qadaya oo labiyo eber la diray qaarna wax weyn bay kasbanaya qaarna wax yar bay helaya ala hasab computerka isticmaalayso awoodiisa iyo adiga xariifnimadaada iyo farsamadaada iyo sida tiqaniyada u taqaano bay ku xiran tahay taasa lagu kala badsanaya marka oo ninba wax ku helaya tayib tawaamid taasi waa qaab kale jiro culimada qaar kood ay u tawsiifiyeen bal qaabkana isagana aan dhageysano wuxuu leeyahay nin kamid ah ragga baaxiinta ah mas'alada dhalinta oo bitcoin-ta la dhalinayo waa amaliyo ama shaqo uu shakhsi qabanayo shakhsigaasi wuxuu haystaa computer shabakad bitcoin la yiraahdo la sameeyay waa ka hadli doonaa ayuu marka la xiriiraya ruuxan lacagta bitcoin-ta helayay muxuu qabanayaa shaqadu qabanayaa ma aha lacag inuu abuurayo laakiin shaqadu qabanaya uu wax ku helayay waxay tahay shabakadan bitcoin iskale ayuu khidmad u qabanaya khidmadu u qabanaya waxay ku siinayaan abaalgud ku siinayaan saway suura midalan u yara dhow oo la fahmi kara waxay tahay bangiga markaad bangiga tagto shaqaalaha bangiga fadhiyo koontiyada fadhiyay koontarada fadhiyay waxay u xilsaaran yihiin lacagaha in ay baaraan lacagta aad keensatay bangiga gashanayso inay baaraan lacagtu ma fake ba mise waa lacag sax check-an aad la timid ma check false oo fake ba mise waa check sax lacag account-kaaga ma ku jirtaa mar hore miyaad isticmaashay mise hadda u horeysa saxiixaagu ma saxsan yahay muxuu ahay accountiga numberkiisan aad rabto inaad lacagta gashato ama kala baxdaay ma saxba adiga hawiyada aad wadatay iyo kaarka aad wadatay ma saxsan tahay oo ruuxi account-ka laha ma tahay adiga la fahantaadi mise mid iska dhigayaad lacag ku filan meesha ma kuugu jirtaa intaas oo dhan qabanaya waxa qabanaya ninkan shaqaalaha ee bangiga meesha u fadhiya sidaasuna mushahar ku qaadanaya ninkan mucaddinka la yiraahdo ee bitcoin-ta wax helahay sameynayana wuxuu leeyahay waa sidaas oo kale
سوي وحليه هاي شقده وقبنياي ما أها إنه وح أبوريو شبكة بيتكوين بشقة وقبنيا شقده وقبنيانا وشقة وعملية رقابية إلكترونية وحوورديين يا شقة كالصعوطة بحوء هاي الشبكة كالصعوطة وورديين وساعة كمبيوتر فرح بدن الشبكة بيتكوين كحراني وحا استعماليا dadka xubnaha ka ah shabakada soo isticmaalayaan waxay u isticmaalayaan lacagihii bay isugu wareejinayaan way ku kala sarifanayaan waxbay ku kala gadanayaan muamala dhexmaraysa saar u tagi doona bitcoin-ka dadka wax ku kala wareejisanaya email ma maraan labada ruux ee muamalada dhexmaraysa toos isugu wareejinay ninkani marka waxa weeye bitcoin-ta sameynaya ee wax helayay shaqadaas uu hubinaya labada ruux ee wax isu diraya ee shabakada bitcoin isticmaalaya ee mid walba xubin ka yahay wareejinta ay lacagta isu wareejinayaan buu hubinaya ma saxsan tahay mise ma saxsana halkaasana abaalgud lagu siinaya oo uu ku siinaya shabakada ku siinaya tiyo kale la mid wuxuu sameynaya marka laba shay buu xaqiijinaya ninkan computerka weyn haysta internetka ugu rakiban yahay muwaasafaadkii aan soo sheegnay isaguna xariifka ah ee shabakada ku xidhan bitcoin shabakadeeda ku xidhan wuxuu sameeynaya laba arrimood buu hubinaya lacagta marka la isu wareejinayo waxay u baahan tahay in ruuxa la garan maayo waxa kamid ah bitcoin hawlaheeda waxa kamid ah ruuxa wax diray inaan la garanin ka loo dirayna inaan la garanin bitcoin mid kale ahna lama yaqaan عالم وذا مجهولة واحد سيداس برادد waxaad u baahantahay un keliyata in saxiix aad leedahay oo ay hayso bitcoin oo electronic ah in aad bixiso risaalo gaaban iyo fariin gaabanna inaad dirto oo lacagta inaad wareejin rabto koodkaagii iyo passwordkii lacagtani lahaydna inaad raaciso inta markaad dirto shabakada lagu wada jira ee bitcoin lacagtii aad dirtay cidii aad u dirtay 10 daqiiqo gudahood bay ugu wareejinayaan laakiin goormay wareejinayaan waa markay hubiyaan macluumaadka maxay hubinayaan ciidan diraysa saxiix inuu kiisiyo koodka lacagta loo isticmaalay keedii inuu yahay kan loo dirayo inuu ciwaanku sax yahay sida ruuxii bangiga fadhiyo oo kale intaasay hubinayaan markay intaa hubiyaan bay lacagta sii deynayaan marka lacagtii aad ruuxa u dirtay ama aad wax kaga sarifanaysa ama aad wax kaga gadanaysa طيب shaqada iyada marka aan tilmaanay inta ah shabakadu inay qabato iyadu ma sameynaysa waxay u xil saaraysaa cidii shaqada qabata abaalgud buulay waxa la wixii xariif aha ee awood laha ee kumbiyuutarada nooca laha ee adduunka jiray baa tartan galaya marka tartan waxay u galayaan 10 daqiiqo u dambeysay muamalaadkii shabakada bitcoin maray ee wax la isugu kala wareejinayay muamalaadkaasi maxaa sax maxaa khaldan ayaa tartan loo galaya cidii muwaasafaadka iyo kumbiyuutarada aan soo sheegnay haysatay adduunka oo dhan shabakadana ku xidhnayd ayaa marka tartan galaya tartanka markay galaan rag baa ku guuleysanaya oo muamalaadkii saxaya kadibna sabab u noqonaya lacagta inay socoto ka u horeeya marka ku guuleysta abaalgudle intii kale ee laga hormarayna waxa ma leh korontada iska bixiya kharashkooda iyagu ha isqabaan laakiin kii ugu horeeyay ee hawsha qabtay ee saxay ee lacagtan la wareejiyay la soo diray inay sax tahay xaqiijiye kadibna block weyn oo lagu wada jiro galiyay ruuxaas ayaa abaalgud loo shabakadu abaalgud siinaysa meeshaas uu marka galinaya wuxuu hubinayaa qodobada iyada waxa kale uu hubinayaa hadda ka hor lacagtan in aan la dirin oo koodhkan iyo numberada hadda ka hor in aan la dirin uu xaqiijinaya saysan isdiwaajiye u dhac kadibna markuu xaqiijiyo wuxuu ku shubay gelinaya dhamaantood hawl u wada furan ama meel u wada furan oo la yiraahdo
blockchain baa la yidhahdaa blockchain ayay ku ridayaan marka iyadana waa diiwaan weyn blockchainkaas waa diiwaan weyn oo electronic ah oo wax alla wixii mucaamalaad bitcoin ay samaysay ilaa maalinkay dhalatay ilaa maanta wax alla waxay mucaamalaad samaysay oo dhan baa laga xaqiijiyaa oo halkaa ku jira halkaasuu marka gelinayaa wuu xaqiijinayaa kadibna wuu wareejinayaa sidaasuu marka ku samaynayaa faa'iidadu maxay tahay marka ninkan abaalgudka la siinayaa muxuu abaalgudka ku mutay faa'iidadiisu maxay tahay shaqada uu qabtay waa inuu xaqiijiyey lacagihii la isu xawilay iyo taxwiilkan iyo dadka isu xawilaya iyo macluumaadku inay sax yihiin intaasuu ku mutay kadibna diiwaankaasi weyn buu gelinayaa saan tilmaannay cid kasta oo awoodaalana marka way u furan tahay markii ay mucaamaladaasi marka lagu tartamo waxaynu nidhi cid kasta oo awooddaa leh waa u furan tahay laakiin 10kii daqiiqaba hal nin basaa guulaysanaya si u xadeeyaan baa waxay ka dhigeen 10kii daqiiqaba soo geli maayo inta boqolaal ruux baa soo gelaysa sooba oo tartanka gelaysa adduunka laga soo wada gelaya kambaniyada ashqaasta cidii awoodda leh oo dhan baa soo gelaysa laakiin 10kii daqiiqaba hal ruux baa guulaysan kara oo mucaamalaad taasoo kaleeta ah sixi kara oo wixii loo baahnaa xaqiijin karay 10ka daqiiqo ruuxa xaqiijiyay baa marka abaalgud iska leh 10ka daqiiqo kumayaalkii kale soo galay ee kombiyuutarada kharashka faraha badan isticmaalay ee internetka isticmaalay ee korontada badan cunay kumayaalka kale xoolahoodii waa gubteen cidna waxba kuma laha laakiin halkaasi bakhtiyaar nasiibku ku soo baxay ee ragga ka soo hormaray kaasaa wuxuu leeyahay abaalgud buu wuxuu ku leeyahay ee kambaniga ayuu ku leeyahay oo macnaha wax weeyaan shabakada bitcoin ayuu ku leeyahay abaalgudkaasi waa abaalgud isaga laftiisu xadidan konton lacagta bitcoin ah baa la siinayaa konton shilin soo ma dhaha meesha lacagteenu shilin ka tahay oo dollar ka yahay oo riyaal ka yahay lacagtan waxaa la yidhaahdaa bitcoin marka konton bitcoin baa la siinaya oo u dhiganta maxay dollarka waxbay uga dhigantaa yuuradana waxbay uga dhigantaa lacagaha sarifka adduunka waxbay uga dhigantaa wayna ka qaalisan tahay dollarka way ka qaalisan tahay euro way ka qaalisan tahay lacag adduunka la qiimo ama jirta kulli way shiindaysa banaanka maraysa marka konton bitcoin ayaa la siinayaa amaliyada cidii ku guuleysata tayib abaalgudka noocaasi ay shirkadu ay shabakadu bixinayso afartii sanaba hoos bay u dhigtaa nisbi goysaa afar sano markay dhamaato hadana nisbi goysaa 25 bay tagi hadana waa la sii goynaa hoos bay u sii dhici 12.5 bay tagi hadana hoos bay u sii tagi ilaa ay marka dambe tagto 0 بمعنى واحد شقدي ويدمات ويصو خدنتي وقتي كان ولا غاري دونا بيليهينو xilli saqfi waxa jira meel aan la dhaafin baa jiro bitcoin to marka ay gaadho 21 milyan oo bitcoin markay gaadho way xidhantay horay u sii socon mayso shaqadiina way dhamaatay maxaa ka dambeyn doona lacagtii xagee aaday sabab ku sii socon doontaa waa caalam majhuul oo la garanaynin laakiin waxay ku xadideen 21 milyan oo bitcoin maxay u dhigantaa dollarka waxay u dhigantaa billions bay u dhigantaa billions dollar bay u dhigantaa kolba sarifka iyo meesha maray ku xiranta tayib waxay ugu xadideen ayagu siday leeyihiin waxa la gaari doonaa lacagtaas la soo saarayo waxay gaari doontaa limitka iyo saqfiga ugu sareeya oo 21 milyan oo bitcoin waxay gaari doontaa sanadku markuu yahay 2140
inta ka horeysa la gaari maayo maxay xadka ugu sameeyeen ama limitka ugu sameeyeen waxay leeyihiin waxay ka yaabayaan lacagtani in is jabiso oo wax badan hadii la soo daayo qiimaheeda dhacayo Soomaaliya way tashiilayaan marka ay tashiilayaan saynis isu qiimo jabinin illa lacagaha waxay ku qiimo jabaan waxa kamida lacag far badan hadii inta la daabaco suuqa lagu soo daayo lacagta way qiimo dhici marka waa inay jirto xad ayna dhaafi karin tartiibkaasi marka ay ku wadaan qaabkaasi culimada qaar kamida ama ragga baaxidiinta qaar kamida u sawiray oo waxay yiraahdeen shabakada bitcoin oo uu tagi doono yaa sameeyay xagee ka soo jeeda shabakada ayaa shaqo loo qabanaya shaqada loo qabanayaana abaalgud lacageed oo bitcoin lagu mudanaya shaqada la qabanayana waa tan soo sharaxnay طيب معنا ازميات بنتين ماذا لا سocota طيب lacagtaasi markay soo baxdo oo ninkii hawsha qabtay la yiraahdo konton bitcoin ba kuugu jirta account-kaaga electronic-ka ama maxfadadaada kuugu jirta markaas uu isticmaalaya sabab isticmaalaya wuxuu isticmaalayaa adduunka meelo kamida company kamida ayuu wax kaga gadanaya waxa jira muxuu ahay maqaayado adduunka kamida waaweyn oo ictiraafsan oo wax laga cuno waxa jira dawladaha qaar kamida oo saamaxay oo dollarka lagu sarifan karaa waxa jira jaamacadaha qaar kooda ogolaaday oo fiigi jaamacadda aad iskaga bixin karto hadda doontana lacagahan jiraad ku sarifan oo euro iyo dollar baad ku bedelanayo iyadoo cadaan baad qaadan la dhaqaaq hadda doontana sida Safaricom lacagta inoogu jirto kala Soomaaliya min beesada lacag noogu jirto sidaas oo kala aad u isticmaaliyo numberraad diri oo ruux baad siin ku sadaqaysan mid baad wax kaga sarifan mid baad wax kaga iibsan waa numberro la kala dirayo way numberro la isticmaalayo electronic way sida loo diray wataan soo sheegnay sidoodaba waxay ugu tala galeen dadka isticmaalaya lacagtan bitcoin-ka inaan la ogaanin leen adduunkii waa la isdaba galay Soomaa nin Mareykan la yiraahdo reer galbeed iyo Jin iyo Jaan ayaaba ruuxii waxoogaa diraba raadsanay xageed ka keentay seed ku keentay say kugu soo gashay yaad u diraysaa sababtu maxay tahay warada roona iskale maxay idiga galay nimankan marka waxay ku tala galeen inay waxa soo dhan ka dhuntaan ruuxa diraya lama yaqaan koodad baa la isticmaalay iyo numero ka loo dirayo lama yaqaan dariiqay marayso lacagaha adduunka hadda markaad xawisho dirtood bangiyada mariso Mareykan bay aadaan salaam socdaan lacagta marka hore Mareykan bay ku dhici Mareykan markay ku dhacday kadib baa la soo diray ma jirto wax saalayn wala Mareykan baadan marayn wala central banki baadan marayn wala munadamaadan maraynin tos adiga ruuxi adduunka cirifkiisa joogay ayaad isu diraysaa laydimana yaqaan muamalaad noocaas marka lagu sameeyaa lacagtii markii aad hesho maxfadadaada soo gasho account-kaaga electronic-ga ay gasho adaa marka isticmaalaya qaab raqmi aad isticmaalaysa sidaas aad u kala diraysaa sidaas aad wax ugu iibsanaysaa waa waxun adiga aad isdhihi war waxan ma jin baa sameeyay jin ina nololo waxa jira moogta nolosha ay ka oo muamalaad laho isticmaalo wax kala iibsado oo qaab wax u kala iibsado marka wax qarsoon oo kala socdo oo hadana aan la garanayn wax la yaab leh noqoto saas daraadeed inta laga og yahay bitcoin oo laga fahmay iyo inta qarsoon baa badan wali xaqiiqadeeda rasmiga ah si waadixa oo la isla ogol yahay looma gaarin qodobka markaan inta kaga soo gudubno aynu nimaadno maxay ku kala duwan yihiin lacagahan hadda la isticmaalo iyo bitcoin lacagteedu maxay ku kala duwan yihiin qodobo dhowr ay ku kala duwan yihiin ama fawaariq asaasiya jira oo jawhari ah qodobka koobaad ay ku kala duwan yihiin waxa weeye lacagahan hadda la isticmaalo waa wax la taaban karo oo la arki karo oo maxsuusa oo malmuusa oo fiziyaai ah waa shay wujuud lahu la arki karo waa
waraaqo ka samaysan مواد kale ka samaysan ama lacagahan electronic bitcoin iyo wixii la halmaalo oo kambaniyada noocaas lacagahoodu wax la taaban kara maaha waxaynu niri waa nambaro waa lacag qiyaas waa nambaro ka dhex muuqda akawnada electronic ee dadku ay leeyihiin iyo shabakada kambaniga ka dhex muuqda waa nambaro طيب markuu ruuxu diro kaba soo qaad nambarada kuugu jiray akoonkaaga electroniga wuxuu ahaa konton waxa kuugu jirta bitcoin konton bitcoin markay kuugu jirtay lacag baad ka dirtay ka xawish ama waxbaad kaga iibsatay waxa isdhimaya nambaradii meesha kuugu jiray baa isdhimaya midka aad u dirtayna nambaradii ku jiray maxfadadiisa ama akoonkiisa electroniga baa siyaadaya wax lacag oo la isdhaafsaday ma jiro wax la taabtay ma jiro laakiin nambarra la isu diray adiga la xdirayna nambarkaagii baa hoos u dhacay ka aad u dirtay la wareegayna nambarkiisii baa kor u kacay kullina shabakada iyo meeshaas laga wada maamulay ku jiraan macna saas daraadeed baa culimada qaar kamid waxay ku magacaabeen nuqud dhihniya tasawwuriya waa lacag maskaxda suuraysi maskaxda ku jira mooyaane wax la taaban karo ma aha رموز بسوادلي يكورر يوحاسنبا لو استعمال دنكا horta way ku kala duwan yihiin oo lacagahan aan isticmaalo waa lacag la taaban karo bitcoin lacagteeda iyo kambaniyada la midka ana lacagtooda wax la taaban karo ma mid labaad iyo qodobka labaad ee ku kala duwan waxa weeye al-intaaj soo saarida lacagahan hadda aan isticmaalo waxa soo saara jihooyin la yaqaano dawlado la yaqaano bangiyo dhexe oo ay leeyihiin wasaarado la yiraahdo wasaaradaha dhaqaalaha munadamaad noocaas oo la yaqaano baa lacagaha hadda la isticmaalo sameeya Kenya kale soo ma joogto wasaaradda maaliya wasaaradda dhaqaalaha central bank baa lacagaha maamula lacagta Kenya isaga markii loo baahay soo sameeya isaga muxuu ahaay masterka isaga damaana asaga ilaaliyo lacagtu inay qiimo dhacdo ka ilaaliya lacagaha marka waxay leeyihiin hadda la isticmaalo jihooyin la yaqaano oo sameeyay oo ilaaliya oo xifdiya oo dhowrah bay leeyihiin ama bitcoin ta lacagteedu masterkeeda lama yaqaan cid walbana oo awoodaan soo sheegnay lana way sameyn kartaa oo qalabkii aan soo sheegnay leh xariifnimadii leh aqoontii tiqaniga leh uu sameyn karaa bimaana jiha gooniya male iska furanta adigii raganimadaada iyo xariifnimadaada kugu xidhantay laakiin lacagahan kale adduunku isticmaalo meel loogu hagaagay dawlad baale dawladdaasana sameysay dawladdaasana ilaalisa Soomaaliga waa qodob kale qodobka kale ku kala duwan yahay saddexaadi waxa weeye wax la yiraahdo at-tahakkum lacagahan hadda adduunka la isticmaalo waxa kontroola jihooyinka soo saaray dawladda soo saartay iyo jihada soo saartay baa kontroolsha iyada daabacada iyada faafisa iyada qiimaha lacagta xadida iyada sarifka qiimaha sarifka xadida iyada dhaqdhaqaaqa suuqa lacagtu ay leedahay iyada kontroolsha mucaamalaadka lagu sameeyo lacagtaas iyada tandiimisa lacagtaas inay dhacdo iyada ka ilaalisa marka wax weeyaan waxa jira lacagahan hadda la isticmaalo control bay ku jiraan dawladaha controla dawladaha iska sameeyaa control amma bitcoin iyo lacagaha la midka cumulaat electroniya la yiraahdo ayadu sida ma hay'ad markaziya oo la yaqaan controlsha ma jirto qaabka lagu sameeyana waa qaabka aan soo sheegnay oo nin kasto awood leh uu sameyn karo qaabka la isugu wareejiyana waxaynu nidhi waa toos الند للند بير تو بير بير تو بير يعني ند تو ند لبدا طرف معاملونيا با توس isugu wareejinay cid ma marto cid ma maamuli karto dadka isticmaalo ayagaasa ku taxakuma dawlad male markazi male centralism male ayagaasa say doonaan ugu tasarrufa waa dadka isticmaalo dhan adduunka kala jooga laakiin malaha jiha markaziya oo ku taxakumto kontrolsho lacagta bitcoin male
waxaa kale ku kale iyadoo sidoo kale mudan inaan tilmaano lacagta bitcoin waxay leedahay sarif u khaas suuq u khaas oo sarif bay leedahay qiimaheeda iyada samaysatay ma jiro suuqyadan kale ee adduunka ee lacagaha lagu kala sarifto sarifka lacagahana lagu qiimeeyo mu'ashiraadka iyo waxa noqon doontana lagu qiimeeyo malaha ayadu waxay leedahay kulli wax soo wax ka baxsan tahay waa dawlad iskeedu madax banaan lacag iskeedu madax banaan waxay leedahay qiimo sarif oo iyadu gooniya waxay leedahay suuqyo gooniya ayay samaysatay oo marna kor u kaca marna hoos u dhaca waxa kale to iyadana ay ku kala duwan yihiin lacagahan hadda la isticmaalo ee waraqiga la yiraahdo ama taqliidiga la yiraahdo marka la sameeyo asal ahaan laba mid bay lacag ku noqdaan inay lacagahani dahab iyo macdan qaali ay salka ku hayaan iyo in marka la sameeyo oo dawladdu sameynayso waxa kale oo la fiiriyaa waxa la yiraahdo al-intaaj al-qawmi wax soo saarka dalka ayaa sidoo kale la fiiriyaa waxyaalo fara badan baa lagu saleeyaa marka dawladdu lacag samaysanayso laakiin bitcoin iyada malaha asal dahab oo ka yaala malaha dawladda soo saaraysa iyo wax soo saarkeeda xagga muxuu ahaayay qawmiga ana kuma salaysna i'tibaaraadka lacagihii hore ay lahaayeen oo dhan hal kamida malaha bal dadka isticmaalaya ayay iyadu guud ahaanteeda bilow iyo dhamaadba ay ku xiran tahay iyagaas ayaa muxuu ahaayay maamula oo say doonaan ka yeela oo iyagaas muxuu ahaayay ama ku khasaara ama ku faa'iida laakiin malaha tilmaamaha ay lacaguhu leeyihiin dhamaantood malaha waxay ku kala duwan yihiin lacagta bitcoin iyo midan kaararka aan isticmaalayno kaar baa isticmaal bangiyadu kaarar bay bixiyaan Soomaa bangiga kaar buu bixiyaa lacagta lagu la baxo Soomaa Safaricom M-Pesa hada lacag bay ugu jirto lacagta isticmaalkeeduna waxay u baahan tahay waa number la dirayo Soomaa number la dirayo waay kadibna passwordkaaga maxay kaga duwan tahay waxay kaga duwan farqo in baa u dhaxeeya lacagahan bangiyada kaararkooda lagu isticmaalayo ama M-Pesada lagu isticmaalayo lacag xaqiiqi oo ku taala bay matalaysaa lacag la taaban kara ku taala bangiga ku taala kaarkani wuxuu ku sahlayaa oo lacagtii ku taala bangiga isticmaasho Safaricom lacagtaadani waa lacag taala waay ama ajensiyadeeda haya ama ayada haysa lacagtii un baa lagu sahlay inaad isticmaali karayso laakiin waa lacag jirto la taaban karo laakiin la sahlay oo kaararkan lagu sahlay waay ama bitcoin mala asalba malaha lacag ay matasho oo meel taala ma jirto saas daraadeed kaararkan la isticmaaliyo lacagahan raqamka lagu isticmaaliyo numberada ee internetka la maro iyo bitcoin ayadana shaqo isku malaha oo furuq waaweyn ayaa iyadana u dhaxaysa anu gudubno lacagtan taariikhdeeda bitcoin taariikhdeeda waxa la leeyahay oo sheekadu ay leedahay lacagtan ama shabakadan markii ugu horeeyay la sameeyay waxay ahayd 2007 milaadiga waxaana bilaabay bay leeyihiin nin magaca la yiraahdo Satoshi Nakamoto waa magac Jabbaani magacu Jabbaan buu yaray Jabbaan buuna ka bilaabay baa leeyahay magacaasi cid leh waa la waayay markii hore waxa loo saaray nin Jabbaniis asagiina wuu inkiro wuxuu aniga ma ihi uu iska fogay mar dambe oo barnaamijku suuq galay baa waxa sheegtay nin u dhashay Australia asagiina hadii la daba galay inuu beenaale yahay baa la soo ogaay sidaas dalaadeed lacagta bitcoin abi hooyo toona ma laha waa gablan wax barnaamijkan iskalena ilaa hadda waa la garan lahayn lama yaqaan qoraalada qaar kamid waxay tilmaamayaan Satoshi-gaasi
hal ruux magaciisa ma ahee waa koox barnaamijkan samaysay baa magacan leh ee hal ruux ma bahaba calaa kulli xaal adugu ama ruux ka dhig ama koox ka dhige lama yaqaan farsamadan iyo shabakadan markuu sameeyey markii ugu horreysay wuxuu u sameeyey page buu u sameeyey ama wuxuu u sameeyey whatsapp buu u sameeyey oo ku magacaabay bitcoin.org markii ugu horreysay 2008 ayuu sameeyey lacagtii ugu horreysay ee la sameeyey bitcoin waxay soo dhacday oo soo shaqo gashay bishii January 2009 inagana goormayna soo gaadhay sanad ma dhanna intaan warkeeda maqmaqlayn mar walba marka annaga adduunka waa ka dambaynaa wax caalam soo gubay oo lagu rogmaday ama waa hore lagu taajiray oo lagu tagay uma la gadaal ka qabsanaa sideenaba marka ay lacagtaasi suuqa soo gashay markii ugu horreysay 2009 waxa la leeyahay marka la fiiriyo hal bitcoin in la soo saaro kharashka ku baxay halkii bitcoin kharashka ku baxay wuxuu ahaa baa la yiraahdaa $1,309 macnaheedu muxuu yahay computer la isticmaalay korontadii la isticmaalay farsamadii la geliyay marka la qiimeeyo halkii bitcoin ee la soo saaray waxa ku kacay kharash u dhigma $1,309 war wala khasaaray soo raarita wala jabay halka markay joogto ayaa waxay u sameeyeen suuq lagu kala bedesho oo boorsado kale boorsa caalamiga oo kale oo lagu kala sarifto lagu kala wareejisto ayaa waxa loo sameeyay sanadkii 2010 halkaas marka waxay bilowday lacagtaasi inay marka adduunka soo gasho mar ay kor u kacdo mar hoos u dhacdo sida aan ku tilmaami doono faqrada soo socoto tadabdubka طيب markay soo gashay suuqa kadib ilaa hadda la soo gaaro 2008 aan joogno bishii labaad aan joogno February lacagtaasi marka la fiiriyo marna cirbay aaday marna dhulkay ku dhacday waxa loo yaqaan tadabdubka sicirkeeda iyo qiimaheeda wadan soo tilmaanay waxay leedahay sicirka sarifka oo iyada u khaasa bitcoin u khaasay leedahay oo la wadaagin iyada sicirka sameynaysa hadda waxay ka tilmaano mesela maraaxishay soo martay markii lacagta suuqa la soo galiyay kharashkii ku baxay waa ka sheegnay qiimihii sameeyna sheegay suuqa markii la keenay ugu horreysay halkii bitcoin wuxuu u dhigmay senti 100 meelood loo qaybiyay senti dollar sentigiis ma $1 ma senti 100 meelood loo qaybiyay meel kamid ayaa waxa u dhigmay halkii bitcoin sarifkiisu waxa weeyaan senti 100 meelood loo qaybiyay meel kamid ama ka siiyay marka kee maxaa qaalis ma dollar ka mise bitcoin dollar ka qaalis waxa ma bahaba bitcoin waxba ma ahayn waa markii ugu horreysay markii la gaaray 2011 bishii labaad say u soo socotay u soo siqaysay baa waxay soo gaadhay halkii bitcoin inuu u dhigmo $1 waa goorma 2011 bishii February bishii labaad isla sanadka laftiisa bishiisa 7 oo July ayaa wuxuu gaaray halkii bitcoin wuxuu gaaray $35 bishii labaad muxuu ahaa $1 bishii 7aadna muxuu gaaray $35 buu gaaray bitcoin-kii baa ka qaalisan dollarkii طيب ila socod bishii 12aad oo isla sanadka laftiisa 2011 halkii bitcoin wuxuu hoos ugu dhacay $2 oo fiirsada tadabdubka ciyaarta oo fiirsuu ciyaaray
bishii labaad wuxuu ahaa $1 bishii toddobaad wuxuu gaadhay $35 bishii 12aad isla sanadkaana wuxuu hoos ugu dhacay $2 kadib uu haddana bilaabay inuu kor u soo kaco bishii 12aad oo sanadkii 2013 ayuu haddana wuxuu gaadhay halkii bitcoin $1,000 $1,000 buu soo kacay markii la gaadhay sanadkii 2015 bishii saddexaad ayaa meeshii $1,000 uu gaadhay haddana wuxuu u soo dhacay $100 halkii bitcoin $100 sidaasuu marka ku socday طالع نازل mar kor u kac mar dhulka ku soo dhac saasuu ku socday ilaa markii ugu dambeysay bishii 12aad sanadkii hadda ina dhaaf 2017 bishii 12aad soo hadda ma dhaweyn waxa ka soo wareegtay bil miya ka soo wareegtay laba bil Soomaa wuxuu gaadhay halkii bitcoin $19,400 buu gaadhay waa lacagta adduunka ugu qaalisan wax muddo kooban oo dhowr sano gudahooda sac u kacay sucuud saaruukhiya sameeyey taariikhda adduunka lacag saas lama soo maray maba jirtaba waxoogaa markuu joogo sanadkan la soo gaadhay January iyo February uu soo dhacay halkii bitcoin wuxuu marayaa hadda 10,000 mar dhowr iyo 10,000 19 waa ka soo dhacay ya idinka ma qalin ka qaada xogaa $1,000 baan bixiyay iyo waxaan bixiyay $2,000 baan sheekh bixiyay iyo warkaas aad maqlaysa macnaheedu waxa weeye hal bitcoin xataa meedan iibsanin ما لا عيار سنتيات يبسني سنتيو هل بيتكوين حتى ما إذا كان بس أنا لازم هاي تمام يسوي لعكتها لين هذا بيتكوين تو معاملة ده العك فرد دماغ إني عيارته حيال بدن بكيرية دولة ده هكار كم إذا مركي سود وياه ويكعدا markii la maqlo dawladaha qaar kood baa joojinay sida China iyo Mareykanka iyo dawladda la midana mujarrad ishaaca faaftana dhulka ku dhacda ilaa hadda tacaamulkeeda ma in bangiyadooda markasiga ogolaadeen laakiin tacaamulkeeda in lagu tacaamulo dawladda ogolaaday baa jira ma sababna waxa kamid ah midalan Switzerland waxa kamid ah Jarmalka waxa kamid ah Japan dawladaha jira xoga isticmaalkeeda yara saamaxay qaar waxa jira ku qaatay ama canshuur ahaan ku qaatay jaamacadaha waxa jira ku qaatay midalan fiigi ku qaatay waa jira laakiin boqolkiiba 99 dawladaha caalamka iyo hay'adkooda lacagta way diidan yihiin wayna ka soo horjeedaan dawladaha ogolaadayna waxay leeyihiin danbay kale waxa kamid ah midalan waxyaalaha Kenya kordhac iyo hoos u dhaca kambaniyada waaweyn ee isticmaala qaar kamid ah haday kacaan suuqa ka baxaan way dhici hadii kambaniyo cusub oo waaweyn ay ogolaadaan oo qaataan way kici hadii marmarka qaar kood ay dhacdo budcada oo internetka budcad badeed baa maqashay budcada internet kuma jiraan budcadka internetku haday intay jabsadaan lacag ka qaataan oo warkaasi soo baxo dhulkay ku dhacay way soo dhacaysaa marna marka korbay aadi awaamil ba saameynay awaamil khariji oo kuwa ay kuwa la mid ah saameynay kor u kacaday hoos u dhacay midalan mar dhaxa waxa faaftay inay China joojinayso lacagta bitcoin ka isticmaalkeeda mujarrad ay shaacadaas soo baxday lacagta dhulka tagtay marka waxyaalo waxa jira saameyn kule lacagta tadabdubkeeda kor u kacaday hoos u kaceeda oo ay kamid yihiin qodobada aan tilmaanay bitcoin inaynu fahanno ayuu ahaa darsigeena qaybtiisa hore waa laga yaabaa dadka qaar kood inay ku wareeraan oo ay yiraahdaan warwaadka wuxuu akhrinayaa diinba ma aha meesha muxaadara diin baa loo yiri xukun sharciye
waxaan nambaradan iyo internet iyo computer iyo waxaan wadaadku akhrinay wixii loo yimid ma aha laakiin waxaan ugu talagalay in aan bal horta aan sharxo bitcoin maxay tahay say u shaqaysaa say lacagtan lagu dhaliyaa muxuu ahaayey yaa isticmaala yaa ictiraafay yaan ictiraafayn taasaa waxay qayb ka noqon doontaa markaan fahanno xaqiiqadeeda oon suuro saxa ka helo inaan markaa kadib u gudubno shareecadu maxay ka qabtaa waana darsigeenna insha allahu tacala habeen dambe kaasaan markaa kadib xadiis baa sidanay aayad baa sidaa tiri sheekhyul baa sidaa yidhi kaasaynu ku sheegi doonaa insha allahu tacala hada billahi tawfiiq sala allahu wasalam wbaaraka cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi wasalam